muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa uu hirdan weyn u dhexeeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamuud Xasan Sacde Saajine kuwaasi oo loolan ugu jiray u tartamida gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye balse hirdankaasi ayaa maanta soo afmeeramay waxaana tanaasul ka muujiyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici munaasabad kooban oo ku qabsoontay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta u sareysa xisbiga talada dalka ayaa kulmiye iyo madax kale ugu horeyn halkaasi waxa ka leh gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaana uu yiri xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aad u ballaaran waxa mar walba xisbiga kulmiye hawlihiisa lagu maamulaa tala wadaag waxa lagu maamulaa maxaan ku dhahdayay isqancin sida la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxa isaguna yiri waan tartamayaa oo gudoomiye ku-xigeenka afraad yiri waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga Maxamuud Saacid arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray dagaankiisu wuu ku jiray taageerayaashiisu way ku jireen xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray hoggaanka xisbiga wuu ku jiray hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday si fiican baa loo soo daadihiyay golaha wasiirada xubno ka mid ah iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyay iyo guud ahaan golahuba arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isla mar ahaantaana ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga oo gudoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii la yidhi waan kula tartamayaa ah go'aan buu qaatay xisbigiisana wuu ka aqbalay raggiisana wuu ka tala qaatay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go'aan qaatay in uu isagu tartanka ka tanaasulo waa go'aan dadnimo leh xisbinimo leh geesinimo leh shaqsinimo leh muujinaya haladaygiisa iyo go'aankiisa iyo tudaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii deegaanka ugu horeeyay laga doortay oo ka mid ahaa hoggaankii xisbiga muddada dheer ee dhowr iyo 10 sanadood soo hogaaminayayna ka mid buu ahaa wuxuu maanta dhaqaaleysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii uu labada xilli doorasho saddexda xilli doorasho uu ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad ayaa xisbigu ugu boogaadinaya anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga hageesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaana uu sheegay inuu tanaasul ka muujiyay u tartamidii gudoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye isla markaasina uu tanaasulay wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamuud Xasan Sacde Saajine waxaan halkan maanta aan u soo joogsaday inaan u tanaasulo qaranka Soomaaliland maadaama xisbiga xisbi xaakim yahay xisbi mucaarad banaan joogayn xisbi xaakim joogo oo khilaaf kala qaranka dhibaato ku yahay inaan u tanaasulay qarankii Soomaaliland maanta xisbiga kulmiye iyo gobolkayga Awdal oo xadaafiir doorasho aad u kala kaxaysay 2017kii inaan mar labaad sii gelin qaybsanaan damba tolkay sii gelin saddexda arrimood markaan dhan walba ka rogay waxaan qaatay tanaasulka inaan uga tanaasulo walaalkay wasiirka ganacsiga Saajin inaan boos uga tanaasulo maadaama aanu odigi maanta waxa la nuweyn basawata nuweyn waraabcuna mardaan odigi samaroona anu madaxweynaha qaranka waxaan ahay dadano madaxweynaha samaroon baan hayaa ma Awdal baan hayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga Maxamuud Xasan Sacde Saajin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici sida uu tanaasulka uga muujiyay kursigaasi ay u wada tartamayeen madaxweyne ku-xigeenka oo constituency ka soo wada jeedno waxa weeyaan aad iyo aad rag isku dhawanahay laakiin si xurgufta moogtay siyaasaddu waa iska sunnatul hayaat inta wax dhaafsan ma jirin waa labada iyadoo baahan marka ta koowaad waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenka oo gartay
inuu iiga tanaasulo arrintii aan isku qabannay aad iyo aad baan moogta ugu mahadnaqayaa waa nin moogtahay xisbiga raggii dhisay ka mida hedel badanna ka soo galay isagoo u turaya markaa xisbigii au moogtahay asaasiyaashiisa ka mid ahaa xisbigii au dhowr iyo 10 sano hedelka soo geliyey maanta in uu moogtahay iiga tanaasulo waxa weeyaan wuxuu iga mudan yahay mahad iyo sharaf taasi waa halkaa waa tu ku socota madaxweyne ku-xigeenka oon konstituency ka soo jeedno tuulada ka soo wada jeedno dad aad iyo aad isku fiican aan nahay isaga iyo reerkaba aan dhagax joog isuna si kastaba ha ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa labada dhinac ay loolan weyn ugu jireen kursigaasi waxaana ay shacbiga Soomaaliland u dhagtaagayeen cidda tanaasulka ka muujinaysa Nagib Cabdullaahi Colaad telefishinka caalamiga bulsho magaalada Hargeysa.